afar sano ka hor hal mar keliya masraxa loolanka siyaasadda Soomaaliya waxaa ka soo dhex muuqday mudane Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha dowladda federaaliga ee Soomaaliya xilligaasi waxa uu tilmaamay inuu yahay musharax u taagan xilka madaxtinimo ee dowladda federaaliga ee Soomaaliya siyaasiyiin badan ayaa aaminsanaa in Xasan Sheekh Maxamuud uu wax badan ka bedeli karayo xaaladda foosha xun ee shacbiyada Soomaaliyeed ay ku jiraan xasan sheekh maxamuud waxa uu ololihiisa doorashada uu tir dhaxaad uga dhigay ilaa 6 tir oo laga maaran ay tahay inuu qabto haddii uu ku guuleystay xilka madaxtinimo ee dowladda federaaliga ee Soomaaliya 1 xasilinta dalka 2 soo nooleynta dhaqaalaha dalka 3 nabadeynta iyo dib u heshiisiinta dalka 4 soo nooleynta adeegyada bulshada oo ay ka hoos baxayaan tacliinta caafimaadka ilaalinta deegaanka fayadhowrka guud ee bulshada 5 midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed 6 ilaalinta iyo abuurista xiriirada caalamiga ah ee ku saleysan iskaashi wadajirineed ammaanka ayaa ahaa shardigii koowaad ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ballan qaaday inuu wax ka qaban doono haddii uu ku guuleysto xilka madaxtinimo ee dowladda federaaliga ee Soomaaliya balse nasiib darro afartii sano la soo dhaafay caasimadda Muqdisho waxay la daalaadhacaysay dilal qorshaysan kufsi boob iyo waliba qaraxyo aan joogsi lahayn